السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوا أصحابتي شرفت سيدتي في عنتي عفماتكين الحمد لله هذا وفي عنا سدوا إن الله ولا لا قال وروح بدن بريس ده وعصبت سبسكرايب يسار هذا هوري اللي جوكتين وما هتصنتها الدم بقى بالك الله ضعفه هذا وما هسندي ده تقصوا وصل بيرين سدوا إن الله قام فرن النيت ساف يكسدوا هذا تذكر أيضا لايك كوالم فهمتين aad u mahadsantiin walaalaha Soomaalida subscribe bi saareen ku horeeyay soo joogay aad ay u mahadsantiin mahad celinka bacdi halkan waxaan ka sheegi rabaa reaction ka bixin rabaa waxaan la yaabo baraha bulshada ayaan qabsaday gabar horta maamyaalka maxay islaamiyaalka Soomaalida aanta horta waa waashteen mid gabar ay u tahdili ee mid ay gabar shaqaale u aheedo guriga u shaqeynaysa dili inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaa dadku waa la yaab war gabar naaga waxaan arkay YouTube ka fiirsaday gabar shaqaale u aheed oo 12 sano jirta ay dishay madaxa ka jartay subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaale jirna xamalihid miya gabadhaas yiriiska oo ku shaqeynaa maskiinta 7 sano la isku dhaxwada 7 sano iyo 12 sano jir waa la isku dhaxwada laakiin ma u maleynaa 7 sano cunug jir inuu shaqaale noqon aad 12 iska dhig 12 kun ka soo qaad ma fahanteen marka walaalaha sharafta leh damiirka alla ka qaad ma xushmeen ways gabadhaas yiriiska oo 12 sano jirta duruufta gurigooda ka soo wada oo gurigeeda keentay inay u shaqeys ma xasuusan ways ما فهمتين سومالي maxay ku maad Soomaali ma Kiswahili wuxuu dhahay mataqaana aliyaju ataku jaajini waxa laga wadaa aad qof kasto isqaad qaado kor isku qaado hoos un baad imaan doonta yani waxa taajir hataa maskiina ku dambeys hada ilaahay ku shukrinay gabadha yiriiska oo ku shaqeynayso oo gurigaada joogto 12 sano cunug jir waa meesh wax barasho ay ku jiraan laakiin wixii guri dadowgii oo ciddu uu shaqeyn horto waa duruuf cideeda haysat iyo waalidkeeda haysat iyo dadkooda haysat iyo waalidkeeda ay dhahan bal gabadheena ha noo soo shaqeyso balan aan wax ay noo shaqeyso aan arsaaqan ama cun sidaas inay tahay laga yaabo waa si u badan tahay kolba cunug 12 jir wax ciddu u geey uu shaqeyn horto wax kale ma waa duruuf alla qaadana ila joogtana intaas way erkayso way xushmin ways ma fahanteen way xushmin ways labda waxan bay u dirtay waa ka madax adeegtay qorta ka jirtaa leh waa dishin masquul ay ku dhaxdhacd qof masquul ku dhaxdhacay lagu soo baxay hooyada waxay tiri ma warsatay masquushay ugu dhacad masquushay aadib ku tiido dhacda oo tago oo madaxan ka daqno dhiig qulqula aan u tagay tiri masquul qof hadu masquush ku dhax kufo jug yiriisa gaarad ma dhimanay nafta kama bixis gudaha duu ku dhaxdo daq gudaha ku dhaxlaan qof kasto ogaan la diris dhamaale isku soo duulay waa la ogaan la ama in askar la keen wax la soo bixin lahay Soomaa alla qaad waxay hadash waxay ay tirahay weysay waxay tiri marka masquul ay ku dhacday saad darteed ay cunugtiin ku dhimatay subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun horta waxaan leeyahay gabadhaas maskiinta yiriista kulay saqiir waa 12 sano qof jira cunug jira waa saqiir إلهي سبحانه وتعالى وحي كلمة إلهي صبر إيمان هكسي والد كيدي صبر إيمان إلهي هكسي سبحانه وتعالى كل بوارد متي حد قف دينتين مصورنا قناع مفاهمتين وحان إذن الله إذن كان دادك والدين تو وحاسا كل مرد ما يدعوني كوي 8 سنة جير وهذا الشيء هاي سنة تعوني قادة كوبا هنا هذا قولوا قادة كولي جو ناقي أيانتا ناقي سومالي هذا أبا الصوت لك تاو داي مد يدو عنك قارجين وديلي وحانياك جو دايني إمد أو متحنياه الماك جوبي مد عنق قارجين أعوذ بالله ورناقي سومالد maxaa ku dhacay war damir yeest maaga Soomaaliyeed kulli wad ma aha laakiin waa kuwa in ka arqabayaalo alla qaadiyalla ku jiro ma fahamtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaatumaha noo suubi waxa jidka xun ku socdo dad dilaano naf Ilaahay subhanahu wa ta'ala naf qaadowgeed naf dilowgeed wax raqiisa wax yara subhanallah marka asxaabta sharafta leh idin waxaan leeyahay dadka waalidiinta ilmiin intaas markay dhihiin shaqaale cita ugu dhigina kaajaha kugu dhinto cunugaada doo rabo isla joogo waad cuntii waxa heshiis isla cuno gurigiina joogo
dhibkaas iyo balaayaan ku dhahay kii ninkeeda hadda lay baqaarijini shaqaalan maxay ka fiirin gabdhaha markay weynaa 15 sano 16 sano taas naagwe waa ka carar kartaa laakiin cunug 12 sano jir ilaahay lagu dhaari 12 sano subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un asxaab sharafta intaas aan kusoo gabagabeynaa please subscribe share like comment Allah idan barkay walaalaha qaaliga ilaahay subhanahu wa ta'ala meel walba adduunka joogtina ee wax xifdiyo sidaas baan kaga tagay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh